الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كسو دواada casharkeena koowaad ee basic practical skillska ee casharkeena waxa ka hadli doona insha Allah injectionka ama durniinka sida wada ognahay waa nooc ama qaab kamid ah qaababka daawada jirka loo geliyo daawada waxa jirka loo geliyo lix qaab ee daawada jirka loo geliyo waxa kamid ah oral iyo injection drops supposito ointment iyo infusion intaas oo qaab lix qaab baa daawada jirka loo geliyo sida daraada injection-ku waa mid kamid ah qaababka daawada jirka loo geliyo casharkeena marka insha Allah waxaan uga hadli doonaa si tartiib ah injection ama duritaan. When do we need injection? Goorma ayaan u baahanahay duritaan? When do we need injection? Goorma ayaan u baahanahay duritaan ama muditaan? Sida casharkeena ku sharaxan doono muditaan ama duritaan qofku waxa uu baahan yahay saddex waqti midun kamid ah. Prescribe of drug of injection. Qofka marka loo soo qoro daawadaas oo ah muditaan. Prescribe ama prescription waa warqadda dhakhtarku soo qoro oo ku soo qoro daawada uu bukaanku leeyahay. Sidoo prescribe qoritaanka of a drug ee daawada of injection oo duritaanka ama muditaanka. Sababta kale qofka loo duri karaa waxa weeye blood transfusion. Qofka marka dhiig lagu shubayo oo hemoglobinti jirkiisa ama RBC-giisa la socota ay hoos u dhacdo oo qofku noqdo anemia. Sida wad ognahay female-ka anemia waxa la oran karaa less than 11 gram 12 gram marka hooseyso, male-kana anemia waxa la oran karaa less than 12 gram 12 gram wixii ka hooseeyo. Haddii qofku marka uu dhiig aan ay ku dhacdo oo dhiig lagu shubayo injection baa loo sameeyaa. Sidoo kale injection qofka waxa loo sameyn karaa blood takes. Qofka marka dhiig laga qaadayo waxa weeye qofka dhiiga beelay dhiig looga qaado isku blood group yihiin ama nooca dhiigooda isku mid yahay. When do we need injection? Goorma ayaan u baahanahay duritaanka waxa u baahanahay prescribe of drug of injection. Marka qofka loo soo qoro daawadaas oo waxa weeye injection ama muditaan ah. Ayada anti pain oo antibiotic ama daawadaas ha ahaato qalajiye ama qandhajabiye midun ha ahaato. Warqadda dhakhtarku soo qoro sida caadiga waxa loo yaqaan prescription ama waxa loo yaqaan RX. warqadda saddex warbixin baa ku qoran. Warbixinaha ku qoran waxa weeye doctor's information dhakhtarka warqadan qoray daawada bukaanka wareystay daawada qoray magaciisa iyo informationkiisa ama warbixintiisa. Waxa ka warqadda RX-ka ah ama prescription-ka ku qoran patient information warbixinta bukaanka. Sidoo kale warqadda waxa ku qoran drug information daawada bukaanka loo qoray, dosage-ka laga qaadanayo iyo frequency-ga inta la soo jirsiinayo daawadan waqti qaadashadeeda. Sida daraaddeed daawada qofka injection waxa loo sameyn karaa in daawo loo soo qoray daawadaas oo muditaan ah in qofka dhiig laga qaadayo iyo dhiig laga siinayo. Common injectionska ama waxa weeye duritaanada ama muditaanada ugu caansan ee la isticmaalo waxa weeye intradermal injection. Intradermal injection waxa loo soo gaabiyay ID waa durriinka maqaarka sare. Durriinka maqaarka sida sawirka ka muuqato qofka daawada waxa laga siinayaa maqaarka. daawooyinka ugu caansan ee laga qaato waxa kamid ah insulin injection ta kamid ah ama daawada macaanta. Waxa kale oo kamid ah injection-ka ama durniinka subcutaneous injection. Subcutaneous injection waxa loo soo gaabiyay AC waxa loo yaqaanaa durniinka baruurta. Durniinka baruurta waxa laga qaataa daawooyinka qayb kamid ah iyo talaalada qayb kamid ah sida talaalka loo yaqaano measles vaccine-ka ama talaalka jadeecada. Durniinada waxa kamid ah durniinka loo yaqaan intramuscular injection oo loo soo gaabiyay IM-ka waxa laga qaadan karaa daawooyin anti pain iyo antibiotic ah iyo qaybo anti-allergic ah xasaasiyadda biyeentaba. Iyadana waxa loo soo gaabiyay intramuscular injection IM baa loo soo gaabiyaa. Sida sawirka muuqata qofka muruqa laga duri karaa muruqa sinta, waxa laga duri karaa muruqa boodada, waxa laga duri karaa muruqa cududda. Durniinada waxa kamid ah durniinka loo yaqaan intravenous injection. Intravenous injection waxa loo soo gaabiyay IV waxa loo yaqaan durniinka xididka kaliya waa qofka la duraya. Types of injection and their injection angles. Qaybaha durniinada ama muditaanada iyo xagalsha loo qabsanayo qofka marka la mudayo. Intramuscular-ka qofka marka la mudayo waxa loo qabsanayaa 90 degree ama 90 degree. Subcutaneous-ka qofka baruurta marka laga durayo waxa loo qabsanayaa 45 degree xagal ah. Intravenous-ka qofka marka laga durayo ama xididka waxa loo qabsanayaa 30 ama 25 degree. Intradermal qofka marka laga durayo maqaarka sarena waxa loo qabsanayaa 10 degree ilaa 15 degree loo qabsanayaa. General guideline of injection qawaaniinta guud ama waxyaabaha loo baahan yahay muditaanka intaan la sameyn ka hor
muditaanka intaan la sameeyo waxyaabaha guideline-ka ah ee loo baahan yahay waxa ka mid ah kow medical staff in la helo qof shaqaale caafimaad ah oo professional person ama qof khibrad u leh waxa weeye duritaanka ama muditaanka. Wash hand qofka fariisa inuu dhaqo isoo ku dhaqaya waxa weeye clean water and soap biyo nadiif ah iyo waxa weeye saamuun soo ku dhaqaya oo ku dhaqaya waxa weeye 6 steps of hand washing lixda hab ee fara dhaqashada isagoo maray. sidoo kale qofka waxa loo baahan yahay markuu duritaanka haduu sameeyo ka hor put on gloves faragashiga ama gloves ka qofku xidho. qodobka afraadna waxa weeye use sterilizer syringe and needle in la isticmaalo silinge nadiif ah iyo waxa loo yaqaan irbad nadiif ah oo bacdooda package-kooda ku jira oo baxaysan hadii bacdo ay ka fiiqan tahay ama ay daloolaan sterilizer ma aha. sida daraad waxa loo baahan yahay noqdaan sterile kuwa nadiif ah oo waxay sterile yihiin markay bacdooda ay ku jiraan. General guideline-ka ama waxa weeye qawaaniinta guud ee loo baahan yahay qofku intuusan muditaan sameeyo waxa weeye medical staff or professional person qofka in la helo qof khibrad oo shaqaale caafimaad oo health science oo inuu yahay kuliyad waxa weeye faculty-gu doona ka sii ahaado ama professional person qof khibrad u leh muditaanka. Wash hand qofka fariisa waa inuu dhaqaa faraha waxa loo dhaqayaa waxa weeye si looga hortago jeermisada ama ilmaartada in qofku gudbaan. Put on gloves-ka qof gloves-ka inuu xidho waayo gloves-ku waxay ka mid yihiin qalabka loo yaqaan PPE-ga ama personal protective equipment-ka qalabka badbaadada caafimaadka. Use sterilizer syringe and needle qofku waa inuu isticmaalo maxay silinge nadiif ah iyo needle ama irbad nadiif ah oo bacaysan oo package bacdooda ku jira. Andy, thank you for all. aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.